السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقيارتك حران سمتي أكاديمي نسكسو الله بشو وناكسن مدة كدب أن أسكسو الله بني موقال كان وحكو سابسيا مانتي حق مهم أو يعني كسابسان ضدكي أو سمان ورقادوه معنا سويفت كودكا معلومات كيما أركتاي أيا إذن لو ذاك دونا iyo haddii qaarkiin oo macnaha muuqaalkan daawanayo aysan warqadda Swift code-ka ama proof of residency-ga haddii ay caqabad ka haysato sidii aad xal ugu heli lahayd ama qaabka ugu gudbi lahayd haddii aad lahayd inaad real account ku furato oo FX Premise oo brokerkaas aad ku isticmaasho haddii aad inaad Skrill ku verify gareyso haddii aad inaad perfect man ku verify gareyso ama haddii IQ option aad isticmaal lahayd laakiin warqadaasi sida ku heleed ee kugu adag tahay oo adiga inta bangiga dhowr jeer tagtay ay ku suurtagali weysay marka caqabadaas ayaan horta maaragtay aan xalinay marka waxa idin la wadaagi rabaa xogta dadkii aan u sameynay adeeg ama service-ka u qabanay iyo result-iga ay heleen iyo maaragtay ayaa idin la wadaagi sida ka warhaysaan walaalayaal bishii 7 bil ka hor waxaan soo dhigay YouTube-ka muuqaal aan maaragtay aan ku sharxayo qaabka Swift code-ka qofka uu sameysan karo asigoo bangiga tagin ama bangiga Premier Swift code-kiisa sida uu sameysan lahaa maasha Allah muuqaalkaasna dad aad u fara badan ayaa maaragtay ka soo comment ka dhiibtay oo ka falceliyay dad aad u fara badan oo ila soo xiriiray oo u sameeyay dabcan waxaan kula wadaagi doonaa insha Allah taala muuqaalkan dadka u sameeyay tiradooda intay ahaayeen halkay joogeen iyo maaragtay sida ugu sameeyay iyo wadada loo marayo ama qofka waxyaabaha shuruudaha laga rabo marka loo sameeyo warqadan Swift code-ka ayaa maaragtay muuqaalkan ku sharxi doonaa inta muuqaalku u guda galin iyo xogta fadlan waxa ka codsanaa in aad follow gareysid Instagram-ka si aad maaragtay macluumaad fara badan iyo xogaha maaragtay badana soo wado ama dhiirigelinta dadka la wadaago si ay u hesho insha Allah taala meesha ay la soo xiriiri kartaan waxa idin dhigi doonaa dhanka description-ka marka haddii aan ku bilowno horta intaan u guda galin sharaxaadda waxa isla eegaynaa tirada dadka u sameeyay xogtooda marka haddii aan tago waxa u sameeyay folder gooni dadkii aan u sameeyay warqadda Swift code-ka waa kuwana marka halahan oo dhan aad u jeedaan yani warqadan waa warqadda Swift code-ka aan u sameeyay dadka ila soo xiriiray gaar ahaan dhanka WhatsApp ila soo xiriiray tiradooda waxay gaaraysaa ilaa iyo 52 qof ayaa u sameeyay alxamdulillah rabbil caalamiin dadkaasina yani boqolkiiba boqol warqad waxa oo maaragtay aan hubo oo haddii aad ku furanayso FX Premise aan lagu soo celinayn oo brokerka hore ka qaadanayo original waaye marka 52 qof ayaa u sameynay alxamdulillah rabbil 52daas qof dabcan hadda muuqaalkan daawanayaan dadkan u sameeyay ayaga comment ka dhiibi doona muuqaalkan insha Allah taala marka dadkaasi meelo kala duwan ay joogeen waxayna u badnaayeen Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyo Jigjiga iyo Boosaaso u badnaayeen insha Allah taala marka 52 qof baan u sameynay dabcan 52daas qofna yani waxay u isticmaaleen inay maaragtay in FX Premise boqolkiiba 80 waxa dhigi karaa real account ku furteen oo forex iyo qaar IQ option ku furtay ay u badan yihiin qaar perfect man u isticmaalay iyo Skrill marka waa kuwana dadka u sameynay warqadihii intay ku save gareysan yihiin kulligood dadka u sameynay alxamdulillah way ku guuleysanay marka haddii aan galo PowerPoint-ga yani haddii aan hore u sii socono
horta waxaa jira qofka intuusan maaragta warqad u sameyn waxaa jira shuruudo ee taa qofkaas inuu maro. dabcan haddii adiga u baahantana waxaa shardi inaad shuruudahan aad soo martid. shuruudda koowaad waxaa waaye inaad horta bangi ku leedahay Premier Bank. shuruudda labaad waa inaad maaragta magacaaga soo qortid. shuruud saddexaadna waxaa waaye inaad customer account numberkaaga soo qortid. shuruudda afraadna waxaa waaye inaad addresskaaga soo qortid. marka hadda intaas aad nala wadaagtid oo WhatsAppka nala soo xiriirtid, macluumaadkaas ayaa bixinaysaa si aan warqadda ugu buuxino insha Allahu tacaala. marka shuruudda koowaad waxaa ka mid ah inaa macmiil aad tahay Premier Bank. dad badan oo waxaa jiro oo aan ka diidnay oo macnaha Premier Bank isticmaalan, sida dad waxaa jira IBS isticmaalo ama dad Daarusalaam ama Dahabshiil ama maaragtay Daarusalaam bangi oo kale ama Salaam bangi oo kale. dadkaas yacni uma suurtagelayso sababtoo ah sida aan muuqaal ku sharxay wixii Premier Bank unbaa xali karaa. dad kale oo waxaa jiray oo ayagana u baahnaa bank statement. dabcan bank statementiga يعني إنا بنجي كقادة تاس معناها بنجي كديدي كرم جرو سببتو حق بقول هذا أنا وقتد دقائق حساب هذا لحدي بلاد قدام بيس أنا على سعتد ونقدس إنه أنا تكيشد ومقرأت دي أي قدس أكل ويسنة يعني ما قرنا سببت مع عميل أوتها مركب بنجي كسيواي يعني ورقد بنجي استيدمنتيga أنا ورقد أصلا إنه حوا ورقد سويفت كوركا هدي دعضو in aad bangiga ka weyso. dadku marka hore waxa kula taleenaa in bangiga ay ku noqdaan kadib haddii marka ay u suurtagal weyso oo anaga nala soo xiriiro si aan warqadii hawsheeda u galno. okay marka dadka meelaha ay kala joogeen ayaa halkan kula wadaagi doonaa. dadka horta waxay kala ahaayeen ilaa 6 meel ay kala joogeen. dadka waxay kala joogeen magaalooyinka Burco, Hargeysa, Boorama, Boosaaso, Jigjiga iyo Muqdisho. dabcan dadka ugu badan waxay joogeen Hargeysa iyo Boorama iyo Burco ay joogeen. boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 intaas ay joogeen. inta kalena Muqdisho iyo Boosaaso iyo Jigjigana dad ayaa u sameeyay ayaa jira ayagana. marka percentage sida macnaha lagu kala badnaa dadka meelaha ay joogeen ayaa halkan ku sharxi doonaa insha Allahu tacaala. dadka horta waxay ma aragtay u qaybsanayeen 7 location oo kala duwan ay joogeen. Muqdisho kala boqolkiiba 5 ayaa u sameeyay dadka nala soo xiriira warqada aad u yaraayeen sababtoo ah Muqdisho qofka yacni warqadaas laga mamnuucan oo ka shaqeynaysa ilaa qof ma aragtay sabab kale u heli waayo ma ahna. marka horta caqabadana waxa keenaya in warqadaas bangigu ku sii waayo waxa waa dadka badanaa markay account ka furanayaan yani waa arday oo dad shaqeeya ma ahan. yani marka taas waxay keenaysaa in qofka marka warqadii la sii waayo balse marka haddii lagu sii waayo anagana la soo xiriirta. dad qaar waxay isleeyihiin forex waxa laga mamnuucay dhankaas Soomaaliland. dabcan forex cid ka mamnuucda mala qof waxa aqaana boqolaal traders oo jooga Somaliland oo ku trade gareeya FX Primes ama forex ka shaqeysta way jiraan. laakiin caqabada waxa waaye student ayaa ku furata marka hore. mar qof student aan address lama sii karo haddii si loo fiirshana waa wax macnaha aqli gal oo macquul ah waaye sababtoo ah qof macnaha ganacsada la sii karaa addresska. marka dadku waxay kala joogeen Muqdisho, Boosaaso boqolkiiba 5 dad aad kooban ahaayeen. Burco dad ayagana xoogaa tira fiican 15 boqolkiiba. Boorama 10 boqolkiiba. Hargeysa ugu badneed oo dadka ugu badnaa waxay joogeen Hargeysa warqad u sameynay 50 boqolkiiba ahaayeen. Jigjiga boqolkiiba 10. Baydhabo dadka joogana 5 boqolkiiba ahaan. marka dadkaasi maxay u isticmaalayaan waxay u isticmaalayaan ilaa 4 ma aragtay u isticmaalayaan waxyaabo 4. dad qaar in FX Primes ay ku furtaan oo real account. sidoo kale waxay u isticmaalayaan Perfect Money, IQ option iyo Skrill inay ku verify gareystaan.
marka dadkan kala duwan waxaa isweydiin mudan halkee nagala soo xiriireen. Dadkan waxay nagala soo xiriireen sida xogta ka muuqata WhatsApp-ka. dadka ugu badan boqolkiiba 90 waxaa dhihi karaa WhatsApp. qaar waxay nagala soo xiriireen Telegram, qaar YouTube-ka naga soo raaceen, qaarna Facebook-ka naga soo raaceen. marka intaas waa dadka macnaha meelaha ay xogteen ay ka heleen nagala soo xiriireen aan u sameynay waay. marka adiga haddii aad doonaysid in lagu sameeyo dabcan dhanka iyo waxaa ku dhigi doonaa description-ka WhatsApp-ka aan nagala soo xiriiri kartid haddii aad warqadaas caqabad ay ka haysto aad leedahay proof of residency marka Swift code-ka marka waxaa nagala soo xiriiri doontaa description-ka dhigi doonaa iyo comment uu koraa ku biin gareey doonaa insha Allah taala. marka waxaa kaloo marka isweydiin leh Swift code-ka waxyaabo badan oo ka caawin kara kaliya ma ahan inaa account ku furto ama address inaa isticmaal. tusaale ahaan Swift code-ka waxaa horta inaa isla fahmnaa fiican. Swift code-ka waxaa waaye waa warqad address ah sidoo kalena ay ku qoran tahay macluumaadka bangiga. soo markii tusaale ahaan aad lacag kula bixiso bangi war transfer oo kale warqadan waa muhiim. dad oo waxaa arkay warqado kale ama address kale ku furnaa arkay forex. warqadan waxay ka saacidaysaa sababtay muhiim tahay waxaa waaye yani markaa rabto inaad si toos ah lacagta bangiga markaa la bixis ee u soo dhacdo warqadan waxaa ku qoran address bangiga ku qoran Swift code. Swift code-ka macnaha waa lambar u qaas ah bangiga oo marka bangiga lacagta u diraa ku aqoonsanayo bangigaasi oo ku isku fahmayaan waa international number ama sort code ay isku fahmayaan labada bangi ee marka lacagaha isku kala diraayo oo international banks ka isticmaalaan. marka waxay ka caawinaysaa in lacagta kula baxdo bangi war transfer sidoo kale address way ku noqonaysaa. marka xogta intaas ku dhan tahay waxaan rajeynayaa insha Allah taala muuqaalka inaad ka hesheen subscribe saar sidoo kale gambaleelka furo like na saar comment-na fikradaada nagu soo qor insha Allah taala sida u aragtid barnaamijkan comment ka bixi insha Allah taala.